قال كي ويناي الرجل عقبة بن أبي معيط أي عزمت بوسمية مقالة مكة دحديدة وأمرك النبي جينا عليه الصلاة والسلام إلى هاي وصوصاري دعوة إسلامكو أي هاي مارك تاني غريبة هاي دعوة إسلامكو غريبة هاي دويرين مركا بريقانا مقالة مكة شخص ugu sharaf badan magaalada Makka ee dadkoodan ugu jecel yihiin ee la rumeeyo hadalkiisa ee amaanada lagu aamino wuxuu ahaa nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam buu ahaa marka nin Qurayshiya oo reer Makka markuu cazumad uu sameeyo shakhsiga ugu horeeyo cazumada uu u sheegi jiray wuxuu ahaa nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam marka ninka gaalka Uqbata ibn Abi Mu'ayth la oran jiray Uqbata ibn Abi Mu'ayth wuxuu sameeyay marka maadaama cazumad uu leeyahay shakhsiga ugu horeeyo ka bilaabay cazumada wuxuu noqday nabigeenu marka u bandhigo wuxuu Muhammadow cazumad baan leeyahay igala soo qayb gal buu marka abu nabigu marxaba waa markii u horeysay leeyahay nabiga lagu yiri fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikiin ay dacwada islaamku magaalada Makka qariib ay ku tahay qariib ee nin aliyeenigi islaamana la dhibayo la cadaabayo ayuu ninkani cazumad sameeyay ninkan gaalka mushrika waxa cazumadiisi ugu horeysay u bandhigana waa nabi maxamed alayhi salatu wasalaam waayo nabigeenu wuxuu ahaa magaalada Makka mujtamaca ku nool shakhsiga ugu dabeecada wanaagsan buu ahaa ugu rusheegsan buu ahaa ugu amaano fiican buu ahaa saadiq almasduuq bay carabta oran jireen rusheegihii la rumaysanayay buu ahaa muhammad al-amiin bay oran jireen muhammadkii amaanada lahaa buu ahaa maadaama nabigu ahaa shakhsiga ugu sharaf badan quraysh cazumada shakhsi ugu horeeya loo sheegay waxa uu noqday nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam dana markaa buu nabigu yimid oo dadkii waliba ugu soo horeeyayba inagu maanta waxa laga yaabaa ballanta ma ilaalino ballanta ninka ilaaliyana waa muumin qofka ballanta baajiyana waa calaamatu nifaaq ba ku jirta ayatul munaafiq thalath calaamaadka qofka munaafiqa lagu garta nabigu wuxuu waa saddex markuu sheekayn been buu ku sheekeeyaa marka la amaanana amaanada uu khaayima markuu ballan qaadana ballanka uu ka baxaa buu rasuulku yiri wa fi riwaayatin wa idha khasama fajara haduu doodayna buu nabigu dhahay been iyo xaq darro ku doodaa buu nabigu yiri qofkaas calaamaadkaas munaafiqiinta lagu yaqaana calaamaadka muuminka lagu yaqaanana waa cagsigeega haduu ballan qaado muuminku ballanta uu ilaaliya haduu sheekayna run buu ku sheekeeyaa hadii amaano loo dhiibtana amaanada loo dhiibtay sidii loogu dhiibtay baa loogu yimaada qofka muuminka marka nabigeenu alayhi salatu wasalaam isagoo ilaalinaya maaragtaane ballanka uu ninka la galay isagoo ilaalinaya dad hortiibuu nabigu yimid meesha laga qadaynayay markaas mujrimiintii Quraysheedna way gadaashiisay ka yimaadeen Aba Jahl baa yimiday Uqba yimiday Shayba yimiday Rabi'a yimiday Walid bin Mughira yimiday gaaladii waaweyned oo dhan baa timiday marale markay arkeen majliska nabigeena oo fadhiya alayhi salatu wasalaam ayay ninkii gaalka ay cazumada fidiye ku yiraahdeen war ma annaka ya Muhammad baad meel isku kaaya keentay ku yiraahdeen miyaanad ka warqabin aniga Muhammad waxa naga dhaxeeyay waan ka warqabaaye laakiin Muhammad nin la dhaafi kara maaha waayo magaalada Makka waa shakhsiga ugu sharaf badan weeyaan ee ugu amaano fiican weeyaan ee ugu rusheegnimo badan weeyaan waa ajiib akhlaaqdaada wanaaggeega inuu qofku muslima uu ku qiro way fiican tahay laakiin waxa ka sii cajab badan qof cadowgaaga ah inuu akhlaaq wanaagaaga uu ku qiro taas ka sii cajab badan markaasay kaceen nimankii Quraysheed iyo koox caroon ay yiraahdeen war waa ka kacaynaa meesha annagu waayo imma Muhammad imma annaka na dooro imma Muhammad oo meesha ka saarta waliba seed uga saaraysa waad caay horteeda ayaad ku caay qandhuufna waad ku tufi waliba waad bahdilay waxaad oranaysaa anu kuma yeeranay meesha ii dhaafay oranaysaa imma annaka dareerayna markaasuu yiri war ininku ay ga dareerinay isaga fudude isaga saariye ii kaadiyay sidii ay ka dalbeen buu nabiga hortooda ku sameeyay gaalkaas bal ka waran bahdilaada inta lag nabiga loo geystay maxaa nabiga maalinkaas sida loogu bahdilay ma taqaanaa waa sida aniga iyo adiga diinta islaamku noo soo gaari lahay darteed ayaa nabiga loogu dhibayay aniga iyo adiga dartay ayaa nabiga loo ihaanaysanayay waayo markiisii hore inta nabinimada la saarin sharaf iyo karaamu iska lahaa laakiin maalintuu yiri nabi baan ahay rasuul baan ahay oo ilaahay baa caalamka ii soo diray
dadka adduunyada ku nool baa risaalada gaadhsiinaya maalintuu nebigu yidhi ayaa wixii dad adduunyada jooga nebigeenna ka wada hor yimaadeen isagoo lilmadu ay ka daadanayso ayuu nebigu ka baxay aqalkii sala allahu calayhi wasalam laakiin qur'aankaa la socda nebiga qur'aankaa la socda waxyiga ku soo degaya markaaba qalbigiisa ayaa laga bi'inayaa murugtaad la soo daristay qur'aankaa markiiba soo degay wa yowma yacaddu الظaalimu calىa yadayhi yaquulu yaa laytanii ittakhadtu maca arasuuli sabiila yaa waylataa laytanii lam attakhid fulana khaliila laqad adalanii can الdikri bacda id jaaءanii وkana الshayطaanu lilinsaani khaduula وqaala الrasuulu ya rab ina qowmi اtakhaduu hada الqur'ana mahjuura وkadalika jacalna likuli nabiyi caduwa min almujrimiina وkafaa birabbika haadiya wanasiira وkafaa birabbika haadiya wanasiira wadkur baa nebiga lagu yidhi xus xasuusnow maalin baa imani doonta baa nebiga lagu yidhi daalimkaa adiga aqalkiisa kaa soo saaray inuu adiga wax ku yeelay buu moodayaa daalimka iyo daalimiinta ka dambaysa oo dhan maalin baa imani doonta baa ilaahay leeyahay farta ay dhexda ka qaniini doonaan farta intay dhexda ka qaniinaan bay odhan doonaan ay ku calaacali doonaan way maxaa muxamed u raaci waaye dariiqadiisa way maxaa nebi maxamed ugu dayan waayey way maalinkii iyakay doon iska saaro maan isaga la soo hadhaa maan hadalkiisa rumeeya maan diintiisa raaca maalin bay ku calaacali doonaan baa ilaahay yidhi kee ku kasta oo daalima ku kasta oo daalima maxaan abaajahal uga dhiganaya saaxiib maanta innaka walaalayaal dhallinyaradeenna mujtamaciinnan dhallinyar baad u badan tihiin wiilal ubadkayga ladaa aad u badan tihiin gabdho ablahayga ladaa aad u badan tihiin walaakiin waxaa murug nagu haysa maanta dhallinyaradeenii maanta ayay ku dayanayaan ma nebigoogii moxamed calayhi salaatu wasalaam ayay ku dayanayaan mise maqduubi calayhim waladaalliin bay ku dayanayaan ma dad ilaahay u cadhooday oo la yidhi cadho ilaahay baa ku dhacday iyo nasaaro la yidhi way baadiyoobeen oo way lumeen oo xaqii way ka waadeenoo caqligoogiiba kuma socdaan dad la yidhi miyay ku dayanayaan maanta dhallinyaradeenii ayakoo ka hadhay hadigii nebigooga calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebiga ilaahay ku yidhi wa qaala arasuulu markaa buu nebigu yidhi yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura yaa rabbi ummaddaydii qoomkaygii quraysheed qur-aankaa way ka hijroodeen jeesjees bay ka yeesheen barashadiisii way ka dheeraadeen ku dhaqankiisii way ka dheeraadeen isku xukunkiisii way ka dheeraadeen aaminaaddiisii way ka dheeraadeen ku camalfalkiisii way ka dheeraadeen markaasaa ilaahay nebigiisa ku leeyahay wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa min almujrimiin mujrimiintaasi ummaddaada way ku jiraan laakiin adiga kuguma koobna baa ilaahay ku yidhi nebiyadii horta diinta aan u soo dirannayba mujrimiin bay iyakuna cadowya mujrimiin ee lahaayeen baa ilaahay yidhi annakaan u yeella baa ilaahay yidhi wakafaa birabbika haadiyan wanasiira adiga miyaa ilaahay baa kugu filan baa lagu yidhi ilaahay baa ku hadaynaya dariiqa xaqa ilaahay baa kugu ridaya gargaar haddaad u baahatana ilaahay baad haysataa kuma dhibi karayaan kuma taaban karayaan wallaahu yacsibuka min annaas inay qurayshi dhib kuu geysataa ha ka filan waayo adiga ilaahay baa ku ilaalinaya baa nebiga laga yidhi yaa ilaalinaya nebigeenna ayaa ilaalinaya haddaan ilaahay amarkiisa qaadanno oo dariiqadii nebigeenna raacna calayhi salaatu wasalaam inakan ayaana ilaalinaya markaas ilaahay baana ilaalin